بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad weyn ay tahay markale inaan dalka ku soo laabto. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo senatarada, xildhibaanada, wasiirada, bulshada qaybaheeda kala duwan, saxaafadda, soo dhaweynta mas'uuliyadda leh ay ugu soo dhaweeyeen aad iyo aad ugu mahad celiyaa. intaas kadib waxaa wada ogtihiin waxaan sugaynaa insha Allah in doorashooyinka qabsoomaan. waxaan aad u soo dhaweynaa qabsoomidda kulamada golaha baarlamaanka. waxaan rajeynaa golaha sanadkan ayagana sidaas oo kale inay mataqaanaa kulamadooda ay suura galaan. waxaan wada ognahay marxaladda dalku maanta uu maraayo inay u baahan tahay qof kastoo Soomaaliya inuu bixiyo dadaal lagu samata bixinayo dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waa mas'uuliyad culus, laakiin haddana waa laga maarmaan in loo istaago si wax loo badbaadiyo. waa ogtihiin 4 sano ka hor meesha wax joogeen iyo maanta meesha ay wax joogaan. waxaan filaynay annagoo dhan ama Soomaalidoo dhan in runtii isbedel macna leh oo kii ay ku taamayeen ummadda Soomaaliyeed iyo dadka jecelba oo dhaco, laakiin waxaa dhacday cagsi. waxaan aaminsanahay meeshii la joogo maanta waa laga dambeeyaa dhinac walba, siyaasad, dhaqaale, amni, arrimo bulsho. shacabka Soomaaliyeed waa shacab duruuf adag ku soo jiray. qof kastoo u istaaga inuu qaado mas'uuliyaddaas waa laga maarmaan inuu ka fikiro mas'uuliyadda qaaday mugga ay leedahay. dawladnimaduna waa wax la wada leeyahay oo qof la arkaba uu ka leeyahay meel uu ka howlgalo. laakiin cidda mas'uuliyadda qaaday waxaa saaran hogaamin toosan, waxaa saaran ummadda inay u adeegto, waxaa saaran inay ka fikirto mas'uuliyadda la saaray maanta iyo berritaba. berri waxaan u wadnaa maalinka aakhirada, ilaa annaga muslimiinana waxaan rumaysannahay in xisaab ay jirto. doorashadii 4 sano ka hor dhacday magaaladan amnigeeda waa ka warhaysiin, nolosheeda waa ka warhaysiin, waa ka warhaysiin himilada shacabka Soomaaliyeed iyo diidilada ay qabeen xilligaas iyo sida aragtidu ay u midaysnayd. maantana waxaa la socotiin dhammaantiin amnigu meesha uu joogo, siyaasaddu meesha ay joogto, arrimaha bulshada, dhaqaalaha. waxaan isleeyahay marka waa lagama maarmaan in loo istaago mar kale in dalka hoggaankiisa la qabto, lana xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed. hadday naqayso dhinaca amniga, hadday naqayso dhinaca siyaasadda, hadday naqayso dhinaca maamulka, hadday naqayso dhinaca horumarka. maxaa yeelay waxaana ummadaha kale waxa ay gaareen ama ay higsanayaan xaq u leh. haddaan ka soo qaadanno ciidamada qaranka, waxaan aaminsanahay aniga si ku talagala in loo kala daadiyey. dhinaca dhaqaalaha waxaan aaminsanahay si ku takrifal ah oo ku talagal ah in madaxda qaranku ay u dhunsadeen, ummaddana dhuunta ay uga qabteen si ay u fududaato dadka inay xukumaan. waxaa jirta maahmaahyo la yidhaah oo carabtu ay leeyihiin eygaaga gaajaysi ha ku raacay. marka aniga waxaan aaminsanahay 4 sano la soo dhaafay dawladda siyaasaddeedu taasay ku wajahneed. waxaana ka garan kartaa sida ay u maamuleen doorashooyinka xildhibaanada iyo senatarada. waxaa la gaarsiiyey fasaadka ama corruptionka tuulooyinka iyo baadiyaha la gaarsiiyey. maxaa u malaynaysaa dal faqri ah oo ay tahay inuu soo kabto marka waxa kaliya oo ay ka fikiraan laga dhigo lacag ay qaataan oo damiirkooda iyo codkooda la iibsado? maxaa u malaynaysaa meesha uu gaari karo? horumarka ay gaari karaan maxuu noqon karaa? intaas waxaa sii dheer sida la isugu diray dadka. maxaa ila dawladnimadu waa dad heshiisa oo higsanaya ujeedooyin midaysan oo ay leeyihiin. afkaartaas guraacan intaas kaliya kuma eka.
ee waa ka sii dheer. waxyaabaha lagu fashilmay waxaa ka mid ah dawladda mas'uuliyaadka ay qaaday oo laga sugayo waxaa ka mid ah dastuurka in la dhammaystiro. dastuurka in la dhammaystiro waa shay sahlan, aad u fudud oo laga shaqayn karo, waxba lagama qabanin. waxaan leeyahay ujeeddaa loo sameeyey maxaa yeelay dastuur haddii la sameeyo waxaa imaanaysa in loo hoggaansamo, sharci haddii la sameeyo in loo hoggaansamo. dawladdan waxay ku caanbaxday inay sharciga garab marto. dawladdan waxay ku caanbaxday inay gaboodfal ku talagala samayso. marka danteeda ma aha inay sharci samayso. dalkaana waxa uu ku jiri karaa waa sharci iyo kala dambeyn. maxaa naga dhexeeya? waxaa naga dhexeeya dalka maxaan ku wada lahaa karnaa sharci. sidaas oo kale in la dhammaystiro mas'uuliyadda labaad waxay ahayd maamulada in la dhammaystiro. maamulada la sameeyey waxaa wada ogtiin sida loo sameeyey, mid kastaba sida uu ku samaysmo. kulligooda waxaa lagu beesgareeyey inuu ku samaysmo danaha ayagu ay leeyihiin. waxaa la abuuray conflict iyo isku dhacyo dhex mara dawladda dhexe iyo gobollada laga samaynayo maamulada. waxaan ka soo qaadanaynaa gobolka hadda noogu dhow koonfur galbeed. dad xoogaal aniga waxay ii sheegeen in la yidhi 2 gobol aan dhisaynaa. waad ogtiin sheekadaas aan u malaynaa. waxaan isku dhisaynaa 2 shabeelle, guddigaa loo saaray. kuwo kale waa loo yeeray waxaa la yidhi 3 gobol soo diyaariye. kuwo kale waxaa la yidhi 6 gobol soo diyaariye. macnaheedu muxuu yahay taas? macnaheedu waxa waaye dadku inay madaxa isla galaan, markay isku daalaanna wixii la rabo laga sameeyo. jubbooyinka waxa dagaal ka dhacay dadaa ku dhintay. waxaan u malaynaa 100 iyo googo qof ku dhimatay. dawladdu inay ka shaqayso dadku inay isdilaan waa arrin sharciga khilaafsan, waa arrin dembi ah oo ay ahayd in lagu xisaabiyo. dadkan waxay ahayd in la heshiisiyo, la isu soo dhaweeyo, la isku soo jiido, maamulna loo sameeyo. maamul kasta oo la sameeyana waxaa laga lahay dana noocaas. marka waxaa loo sameeyey si loogu adeegsado danaha laga leeyahay. marka aan soo qaadanno 1 man 1 vote oo ayadan ahayd mas'uuliyadda saddexaad oo la rabo dalka inay gaarsiiso dawladda. doorashadu waxay ka dhacaysaa meesha shalay ka dhacday, iyadoo amnigu meesha uu ka liito, duruufta dhaqaale meesha uu ka liidato, conflict dadka uu ku dhex jiro caloosha aysan saafi ahayn. ayadana waxaan leenahay si ula kacaha loo sameeyo. maxaa yeelay dadka marka la qaybiyo waxaa fududaanaysa inay qof u xukuntid. waxaa laga yaabaa dad badan inaysan sidaas u fiirin, laakiin aniga waxaan leeyahay waxaan oo dhan waa ku talagal. qofka haddii niyadiisu wanaagsan tahay laakiin wax ka xumaadaan waa la garan karaa. laakiin marka uu sameeyo wax kastaba si ku talagala waa arrin khatar ah. arrinta kale oo aan raba farta inaan ku fiiqo waa xiriirka arrimaha dibadda oo mar walba dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya aad muhiim uga. annaga waxaan nahay dal aan isku filnayn weli, ku tiirsan kaalmada dibadda. taas waxay naga rabtaa marka inay timaado calaaqaad wanaagsan dawladaha dariska ka bilaaw kuwa daneeya Soomaaliya. calaaqaadkaas maanta meesha uu joogo waa aragteen. maxay u dhacaysaa waxa soo dhan? waxay u dhacaysaa groupkan meesha jooga dantooda wixii aan ahayn inay banaanka iska dhigaan, kama fikirayaan calaaqaadka doo xumaado. qofka ajnabiga kama fikiraayo waxa samaysay madaxda dawladda, shacabku lama qabaan. dawladda in badan oo ka mid ah la qabana dhici karta lagama fikirin waxa soo dhan. caqabaadkaas la abuuray waxaa loo abuuray in dhinacna laga muujiyo in dal xura leeyahay oo go'aan leh oo dadka aan aad uga taxadirin arrimahaas sidaas loo garansiiyo. dhinaca kalena wax kasta oo hor istaagi kara danahooda inay iska fogeeyaan. waxaan soo dhaweynaa mar kale inay maanta noo jiraan 2 gole. waxa sharciga ah maanta oo la soo doortay waa 2 gole. waxaan rabaa marka inaan fariinteyda u gudbiyo
waxaan rabaa inaan idhaha mas-uuliyad weyn aad idin saaran oo taariikhiya maanta waa arkaysiin maanta xaalad dalku meesha ay marayso dhinac walba dhinac siyaasadeed dhinac amni dhinac mataqaanaa bulsho dhinac mataqaanaa dhaqaale haddii aadan doorana cid daacad ka ah niyad u haysa inay wax qabato u istaagaysa inay dalka midayso dana aan ka lahayn kursiga aan ahayn shaqada loo wakiisho inay qabato dalku wuxuu aadayaa meeshaan meel ka liidata haddii aad u jilacdiin handadaadda iyo is-hortaagga iyo dhaqaalaha ummadda ee la dhacay aad u hanqaltaagtiinna iyadana waxaa imaanaysa khatar waxayna keeni kartaa qof walba dhibku inuu soo gaaro waa mas-uuliyad adduunyo waa mas-uuliyad aakhira marka waxaa leenaha codkiina geeya meel saxa maanta dalkan inuu badbaado iyo inuu meel kale aado laa qadar allah codkiina ku xidhanta ha ka fikirin maslaxadaada gaarka ah ka fikir maslaxada qaranka maslaxada shacabka soomaaliyeed maslaxada dawladda soomaaliyeed ka fikir maalin taariikhi ku tahay inaad garato mas-uuliyaddaas waa arrin muhiima waxaan rabaa inaan idiin sheego fursadaha ay heshay dawladdan oo ay beerdaraysay waxay heshay ixtiraaf buuxa waxay heshay dhaqaale waxay heshay isgarab istaag dhab ah oo adduunka uu garab istaago waxay heshay rabitaan shacab Soomaaliyeed oo diyaar ah dawladooda inay dhageystaan maxaa ka nool inta adinka idin weydiina maanta waxna kama nool waxa soo dhanna waxay u dhaceen si ku talagal ah si loo xaqiijiyo danaha gaarka ayagu ay leeyihiin waxaan rabaa marka inaan weydiiyo shacabka Soomaaliyeed su'aal dawlad kalitalisa oo ka fikirta danteeda wax qaba karin iyo 20 sano kadib inaan aqbalno annagoo og dawlad 20 sano jirto oo military ah waxa kaliya oo aan ku riixaynay inay ahaayeen inay ahaado dawlad kalitalisa jawaabtu waa cadda maya haddaba maxay tahay dariiqa wanaagsan oo looga bixi karo qof kasta oo Soomaaliya xildhibaanada jooga ama miduu qaraabo leeyahay ama miduu saaxiib leeyahay inuu codkiisa gudbiyo inuu waaniyo inuu aqliga celiyo inuu dhiirigeliyo inuu u sheego codkiisa macnaha ugu fadhiyo ummadda Soomaaliyeed maanta gabagabadii guul iyo guul daro waxaa ka horeeya rabitaan ani waxaan aaminsanahay madaxda qaranka maanta joogta ee xilku ka dhamaaday asal ahaanba uma diyaarsaneen inay gutaan waajibkooda ee waxay lahaayeen dana kale niyadooda wax kale ku wajahneed taas ayaana keenta maanta meesha la joogo kulligeena qof khibrad gaar ah u leh dawladnimo laguma jirin laakiin haddana waa la dadaalay falillahi alxamdu bani aadamka khalad iyo saxba waa leeyahay laakiin meel macno leh oo Soomaaliya isugu timiday yaa la isugu keenay waxyaabaha aan la yaabo waxa kamid ah wixii la soo qabtay dawladdu inay mar walba inkirayso ay dhahayso meel eber aan ka soo bilaabno waxa loo dhiibay ciidan kala duwan ciidan military police nabad sugid iyo usluub waxa loo dhiibay magaalo shaqaynaysa oo garoonkeedu furan yahay oo dekedeedu furan tahay oo jidadkeedu furan yihiin waxa loo dhiibay ummad Soomaaliyeed oo gacmaha haysaysata waxa loo dhiibay yaani dhaqaale inta rabaa la akaada dadka inay wax u soo golaan nolol ay jirto waxa soo dhan dawladdu waxay isku dayday inay dafarto su'aashu marka waxay tahay haddaad ziira ka timiday bal noo sharax ziirada saa uga timiday waxaa la isu keenay halkan ergey waxaa la ansixiyay dastuur waxaa la doortay xildhibaanadii yaa ku doortay waxaan rabaa inaan idiin sheego dawladihii Soomaaliya ee la soo dooranayay dawladda Siyaad Barre markay ay burburta kadib 2000 dawladda ku meel gaarka ahayd Cabdiqaasim waxaa lagu doortay Djibouti 2004 dawladda ku meel gaarka ahayd Cabdullaahi Yuusuf hogaaminay waxaa lagu doortay Imbagati 2009 dawladdii aniga aan hogaaminay waxaa lagu doortay Djibouti mar kale 2012 dawladda madaxweyne Xasan Sheekh oo hogaaminay waxaa lagu doortay magaalada Muqdisho soo dawladda magaalada Muqdisho lagu doortay inay tiraa meel eber aan wax ka bilawnay garma noqonaysa maya طيب aan u laabano qiimeyn dhaqaalaha aan fiirino amniga aan fiirino
arrimaha bulshada aan fiirino siyaasadda aan fiirino meesha shalay wax joogeen iyo maanta meesha wax joogaan yaa roon waxaan aaminsanahay shalay roon horumarkii afarta sano la sugaayay lama ark marka waxaan leeyahay waxay ahayd in la yiraahdo doorasho ma gali kartiin dambiilayaal aad tihiin ummadii akhyaanteen antida dadka aad doonsanteen maxaa yeelay doorashada lacagta lagu galay xagee ka timid lacagtaas ma hore loo hayo maya xagee ka timid ama waxay ka timid magaca shacabka Soomaaliyeed ama waxa aad wada ogtihiin oo la dhunsaday dhulka dawladda la wada iibsaday wax la ogyahay waxaan la ogeyn waxay la tahay marka inay tahay marxalad muhiim ah inaan u istaagno dalkeenna marka la inaan hanano annagoo rabsho sameynaynin inaan ku raadino dariiqa saxda ah dimuqraadiyadda waana tan aan filayno inay u dhacdo sida wanaagsan shacabka Soomaaliyeed ay filayaan inay u dhacdo markale waxaan rajo weyn ka qabaa inaan mas'uuliyadda hoggaanka dalka ku guuleysto si aan ugu celiyo khadkii ay ku socotay ee ahaa in la higsido himilada shacabka Soomaaliyeed in la mideeyo shacabka Soomaaliyeed la soo dhaweeyo in la dhiso ciidamada dawladda ama hay'adaha dawladda dhamaantood ha noqdaano kuwa amniga garsoorka iyo maamulka in la hagaajiyo calaaqaadka u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed dhamaantood ama ha noqdaano gobollo ama ha noqdaano qabaa'il waxa ugu horeeya sameey doona insha Allah waxay noqon doonaan dib u heshiisiin dadku ay niyadda isu furaan si dhab ugu wada hadlaan wixii soo dhacay waxaan ka shaqeyn doonaa Ilaahay idankiisa hay'adaha dawladda in sida ugu wanaagsan loo dhiso waxaan ka shaqeyn doonaa in dalka aan la keeno shirkada maalgashada si shacabka Soomaaliyeed loogu abuuro shaqo waxaan ka shaqeyn doonaa in kor loo qaado aqoonta iyo waxbarashada shacab hadaa rabtid inaad bedeshid waa inaad wax ka bedeshaa aqoonta waa in la baahiyo aqoonta qof kasta oo Soomaaliya waa inuu helaa aqoonta uu xaq u leeyahay ugu yaraan dugsi hoose iyo dugsi dhexe waa inay noqdaan lacag la'aan waana wax la sameyn karo in dib loo dhiso jidadkii korontadii biyihii waa in la helaa waa qofku xaq u leeyahay oo san ka maarmin karin qaybna ka ah horumarka dalka waxyaabahaas oo idin waxaan fursad u helnay inaan jawi degan uga soo fikirno u soo diyaar garowno maxaa yeelay markuu qofku xafiiska fadhiisto waa adagtahay inuu ka fikiro waxyaabaha istiraatiijiga waxaan rajaynayaa qof kasta oo Soomaali ah gaar ahaan xildhibaanada iyo senatarada inay gacan ugu soo sii doonaan waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.